Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa daawooyinka gooryaanka loo isticmaalo. Waa daawooyinka loo isticmaalo gooryaanka. Daawada jaardiyaasiska. Daawada jaardiska. Kow waxaan qaadanaynaa metronidazole. Labo waxaan qaadanaynaa tinidazole. Saddex waxaan qaadanaynaa natoxoniside. Afar waxaan qaadanaynaa quanadocolor. Afar waxaan qaadanaynaa midda shanaad waxaan qaadanaynaa furaslidone. Waa daawooyinka jaardiyaasiska loo isticmaalo. Antijaardiyasis waa anti-omebic dragne. Waxaan ku qaadan doonaa daawooyinka anti-omebic drag ayagana metronidazole oo lambar 1 lambar 2 tinidazole, lambar 3 sendinazole, lambar 4 ornidazole, lambar 5 estranidazole. Waa daawooyinka anti-omebic drag. Kulligood waxaa la isku dhahaa daawooyinka loo isticmaalo gooryaanka. Haddana waxaan qaadanaynaa anti-drug trichomonasis. Daawooyinka la dhaho anti-drug trichomonasis waxaa ka mid ah metronidazole, lambar 2 tinidazole, lambar 3 secnidazole. Waa daawooyinka anti-trichomonasis. Kulligood ayagana waxay ka mid yihiin daawooyinka loo isticmaalo gooryaanka. Anti-helmintic drug waa 5 nooc asigana waa daawooyinka ka mid yahay gooryaanka zaa'idka ah ee dadka bini'aadanka ku dhex nool. Kow waxaa loo isticmaalaa qofka aadka u hayo gooryaanka zaa'idka ah albendazole markasteeto waa muhiim. Qofka gooryaanka markasta duu kula nool yahay waa inuu isticmaalo albendazole. Waxaa soo laabaynayo mebendazole iyo albendazole waa same, laakiin waxaa shaqo wanaagsan qabtay inta badan albendazole. Pyrantel boramate ayadana way ka mid tahay daawooyinka anti-helmintic dragga. Babarazine ayadana way ka mid tahay anti-helmintic drag. Midka shanaad oo u dambeeyo lafamisole oo asne daawooyinka aadka gooryaanka u isticmaalo. Waa midka asiga ugu tabarta yar. Daawooyinkan kulligood waxaa loo isticmaalaa si aan dadka u ogaasiino ama ay ogaadaan in loo isticmaalo daawooyinka gooryaanka oo keliya in loo isticmaalo. Qofka markuu gooryaan hayo waa inuu intaan daawooyin u raadsadaa ama uu yaqaanaa qaabka loo isticmaali karo. Sababtoo ah hadda markii laga soo bilaabo metronidazole ilaa tinidazole iyo albendazole iyo mebendazole, afartaas ayaa ugu caansan. Inta kaleeto Soomaalida inta badan ma fahansano. Tusaale kale tinidazole iyo secnidazole iyo estranidazole iyo waxaas hadda ma fahansano. Laakiin hadda waxay fahansan yihiin metronidazole iyo tinidazole iyo albendazole iyo mebendazole. Intaas ayay dhaqaatiirta qoraan. Waa inta hadda ugu muhiimsan waana gooryaanka zaa'idka ama dadka markuu dhibaayo. Waa mahadsantihiin. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.